qiiroodan oo ربي لقى مواعين عروسين وراحيون حليلي dadka markay da'du bilaabanto sida baabuurta kale weeyaan baa leeyahay service engine check maxay check engine wala waxa soo shidma waxa leeyahay labo way qoydaa labo way qarqadaa labo way qalqaloocataa labana way qamtidaa labo way qalqaloocataa kuma aniga adeesto labadii lugood bas isku goortay كودي لا لا قمت لها بربر عمر بس وكذا بربر برضه مقولي لا بوي قيدا بالو لا بضع يد بيوم بس هكذا صانع هيه بسم الله لا بوي قرقدا كوف شامك اللي بودي ببلق بلق تاسوا أنا قال إحنا نشنجرك أنا مية تاس تاسوا أنا قال لا بوي قلقلو عتاني وكتير لا بدي اللغات أرمان بحكوا يدينا دقيقة كور أنت مهير كاغا دعين يهدو مهير كاغا دعين محاش بدل دريبي والله أنا بلاك مارو هل كده ورجال روا يقول رجي أنا بس قبل وضع أقول رجي عبد الشافعي يساعدك علي ما يسوي رجيه أنا بس قبل يا دعاء يقدميه الله أفوض أنا أبو الصومالي هذا أرمان الله أفوض أنا أبو الصومالي لكن متزع على وصوت الشيء هذه اسكابولس مسكين وكذا أصلا دعاء واجب وأنا أستحقهم كل دعاء أيوة كارو horta anaga waa nagala dhargay waxa waay dibkeen ha ahaato dakarta أنا يديم دعاء كجينا miya ducada la miya صارت معك ما okay calafku waa cajaayib facebook ka aragtaya youtube ka aragtaya instagram ka aragtaya ama tiktok iyo snapchat ka aragtaya wixii lagu qoray ku seegi mayaan naafa ahaw ha ahaan adigay ku taala calafku waa kii ilaahay ku qoray aroosyada iyo dadka maamulayaasha ah maxaa kala haysta qofka habeenka arooska iyo aroosada iyo dadka barnaamijka daadihinaya hawsha kala qabsatana waxbaan maanta idinka tusi doonaa la yaab bismillaah salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta sharafta la qiimaha badan waa mar kale muuqaal cusub wala ka hamiyo baro ku soo dhawaada meel idinka jecel yahay walaalaha qalbiga waa gudoomiyihii maxkamadda sare social media bartan ayaan idinkala hadlayaa cajaa'ib min alcajaa'ib like inoo saara subscribe inoo saara salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ha hilmaaminina ahey xilli salaada idin tahayna ordaya soo tukada intaa kadib laba barnaamij laba aroos oo cajaa'ib ah baan idin soo qaadaya labada aroos bal waxaan ku hormaraynaa saaxiibkan hal baa jirta aroosyada anigu aan ku aqaan xilliga maalinka arooska habeenka arooska dad baa maamula arooska waliba hadda DJ iyo fanaaniin iyo wax hadii la soo kaxaysto kaba daranba gabadha wiilka la dhalatay iyo wiilka gabadha la dhalatay iyo islaan meel ay ka timi aan la aqoon iyo nin meeluu ka socdo aan la garanayn iyo balaaya inta timaado oo mid walba wuxuu rabaa inuu hogaamiyo saaxiibkan waxaan u malaynayaa ninba gabadha gacan saaray miyaa ma gabar kaleeta ma aqaan odagaan masayr buu kaxla yiri baa u malaynayaa bal aan daawano albario waxa ay sheegtay sameeyay soo dhawaaya labada dhig gacantaada dambe ha u dhaqaaq gacanta saaray ku xanaaqay miyaa reer ii jilciya halkaan uma fahmin gacantu ku saaray gabadha gacantu saaraya fiiri gacantu saaraya gabadha leedahay hadiga gacantaadu maxaa waay miyaa gabar kala meesha ka qalisay albario odaga islaantii waa gacanta laga saaray dhiigga ku kale waa u milay waa masayri walow afka maartay xogaa la iga badiyo
haddana gacantuu saaray afmaay buu ku hadlay gacanta maxaa waaye hadi baari waxa ay sheegtay ismaamul miya waxa ay sheegtay ismaamul odaygu waa istaagay gacantaada dambe ha u dhaqaaqin intaana waa kartay waaya waxaa jira aroosyada marka aroos la gelayo weliba Yurub iyo markii la joogo DJ uu jiro oo wax badaadinaya DJ halka ayaa u gala mataqaan gabadha walaasheed heesablaaya la rabaa in lagu soo geliyo heesta waa in ku soo gelisaa taashid mid kala imaanaysa waxay dhahaysaa bedel heesta bedel aduusan DJ-gu labada dhagood qam inta ka dhigto uusan darihiisa raacan hawl adag baa meesha ka dhacda qoladan intaas ugu gudbaynaa nin dhalinyaro ah oo hadafkeenu ba ahaa inaynu ka hadalno baan soo qaadanaynaa bal ila eega waaye aynu daawano wallaahi ani hala waa qeyroodan oo ما شاء الله عجائب أروسكينو راحيو ربي لقما واي أروسكينو راحيو أروسكينو راحيو كبح ما شاء الله تبارك الله ها رئيسي برواقي ما شاء الله تبارك الله wiilkan gabadhu Sacuudiga uga timi ha u malaynina meel dhow iyo kaftan iyo ciyaalka xaafadda ha u malaynina waxay uga timi Sacuudiga uga timi waxa hajir in socdo wariyo gudamo wadooyinka ku barta meelaha kale ku barta socdo ka soo raacaan qolkii ku soo aroorna waxaan waqtiga telefoonka isticmaalo ardayda dadka ku xiriiraan Facebook iska baranay waadi ku faa'iideysan أي سعودية كشقة جرتي شخص قال بقول ضرب كشقة سيسي سعودية كسرتي أنت أول ما تقولتي أو قلاتي مركا واحد بدنا اسمه بلا وحالك إن سعيد فيسبوك أتطلعشان صباح أنا كان في دورة ما أتكلم أسبوع بس والله فرحت إن ما شاء الله تبارك الله المسؤول كل كره هذا نفرح سنة ويكون هالكين نرجس كصبيرة عارجينا إن شاء الله إن أحد كبد النرجس فرحت نصيو كلمة كسر علونا كبابية والله إن شاء الله فرحت إن مركب ماشي نلقيه أنا بقول ليجي ساعات كين نلقيه وفرحنا صراحة أنا كل ما أنا صليت ضد نسمي قال أنا سحبتهم هذا الناس سحبتيس waxaan u baxdo oo wacan ilaahay kala siiyo ma sha Allah tabarakallah waxyaabaha cajiibka waxay uga timi Sacuudiga ayay uga timi ilaahay wada weyn waaxida waxay ku shaqeynaysay 900 هنيك من الشيخ محمود يرجع حمسي يقدم برلمانك شيخ المدير لما دتك او سسريو xilka dawladda waxaan ilaa aniga firkan si laga saaro raba ahmed dibadda in la diro oo weeran hadda xataa firka laga saaro raiisul wasaaraha waa qanacsana hadda firkan ugu jiro aan ahmed dibadda la dilaynin ana waxaan ku tagay aan haysanin oo ku talay ugu jirto oo qalbiga guwa wali xasalaasha ma ahaydo dadka ahmed dibadda oo firiya ninkan dhalinyarada ah aan arkayno xaqiiqdii horta xanuunkan iyo ma garanaysaay macnaha jiisnimada ama curyaannimada aan arkayno ama naafanimada ma aha mid ku dhashay firir baa galay firirkii galay ayaa ku jira dhibaatadaana u geystay xabaddu alla maxay xabadin naafays alla maxaa qarax naafay Soomaali waa wada dhiban yihiin ilaahay dhibka ka saaro wuxuu ku codsanayaa madaxda dalka wuxuu ka codsanayaa madaxweyne Xasan Sheikh iyo ra'iisul wasaare Xamse iyo aadan madoobe iyo wuxuu ka codsanayaa in dibadda dhakhtar loogu diro xataa hadii firirkaas ugu jira buu yiri layga saaro waa iska niyadu caadi bay in noqon lahayd niyadu marka aad bay cajiib u tahay runtii ninkan umad Soomaaliyeed inay u kacdo waa fiican sababtoo waa ognahay madaxdu siyaasad bay ku mashquulsan tahay maal heblaaye meel buu aaday kanuu aaday dalkii oo dhan baa u yaala qof maray xusuusanayaanba
ma jirto qof ma xusuusan karaan qalbigoodaba qof kuma soo dhaco runtii qof qalbigooda kuma soo dhaco marka ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay ummadda Soomaaliyeed wiilka dhalinyarada u khasbo in u gargaarno ba aad ugu wanaagsan wallahi waa la awoodaa idlayaro waa ogeydeen muddo aad u kooban oo yar baa loo kacay dhag idlayaro waa ogeydeen xanuunkii ka muuqan jiray meelaha madooba isagoo dhan si kale u ahaa turkiga la geeyay buradii baa laga soo saaray maca salaama fay kaftankiisa jaran aniga iska kaftamay oo farxad badan sidiisii awalba uu farxad badnaa laakiin maalmo dhexdaas aad buu u murugay marka kanna waa wiil Soomaaliyeed in loo gargaaro way ku fiican tahay gabadhaasna waxaan leenahay ilaahay sharaf iyo karaam siiyay waa gabar qiimo badan gabadha wiilka inta social media iska barteen Facebook inta iska barteen uga timi Sacuudiga $900 bay bishii ku shaqeynaysay sida uu afkiisa ka sheegay $900 inta isaga timi ayay u timi ma sha Allah tabarakallah jacaylku waxa moodaysid ma waxay tiri illadii uu joogay ayaan ma aragtay maanta illadii buu ka baxay anaa la nool wax kastana in uu qabtaan diyaar u ah ilaahay ubadka kala siiyo khayr qaba ma sha Allah uu ooyay oohintaasi tan oohinta hadda uu ooyay ma ahayn oohintii murugada ahayd waa oohin xusuus hore muruga ah iyo farxadda hadda uu haysto oo la isku barxay weey ma sha Allah tabarakallah halanahay ilaahay uu siyaadiyo wiil iyo caano gabar iyo caano yarkii kaleeto arooskiisa isagana wiil iyo caano gabar iyo caano labadaba oo hambalyeynayna hambaliyo qurux badan oo sharaf badan labadaba ilaahay ubad khayr qaba ha kala siiyo laakiin waxa uu soo qaatay wiilka kale wax kale ma ahayn waxa uu soo qaatay xilliga arooska wiilku buuq buu ku jiraa muddo soo rafaadayay arooskiisa isku aadintiisa hawlihiisa shaq waxbuu waday isagoo intii isku dubaridkii wada baa markii arooska la yimaado qola waxay rabtaa inay iska maamusho markaas waxa laga yaabaa wiilka qoladiisii hadii la doono iyo gabadha qoladeedii iyo protocol fiican haduusan lahayn inay halka xoogaa khilaaf ka dhaco oo adigu saayeen ma ka amarka hore raac waxa la dhaho ka dambe raac baa jira oo wax badan baan u soo joogay wax badan baan arkay marka aroosyada inta badan khilaafkaas oo kale waa ka dhaca laakiin hadda waxaan u maleeyay inuu ka xanaaqay ninkii xaaskiisa gacanta saaray xanaaqna ma ahayna waa waajib sax weey soo saari kara gacanta soo taagin buu martaba gacantaada adiga hebel gacantaada soo taagin buu laakiin waxa laga yaabaa inuu saaxiibkiisa isagu soo xaba uga jeedin intaas ku soo gabagabeynaya waxaan idinkaga tagayaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh